الله الرحمن الرحيم. قدوميها قبل كبنادر تليها عيدمada بوليسكا دمان عيدمada أمنية كلا دوان قبطان جوجا بهذا الصحافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركه هر إله سبحانه وتعالى أيام ما هله مركه لبالنا وحنا مهد العلين يا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو oo fursad ii siiyay inaan sheegay inaan kaga faa'iideysto furidda wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho. waxaan halkan weynid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyay ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed. aniga kan shakhsi ahaan lafsadeyda ka soo qaado bil ka hor waxaan kamid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan. runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho. magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culeyskii ay soo mareen mudooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen. walaalayaal, ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen wada saaran. فرين وحن ربا إنا نقدر شعب كالصومال قار أهان شعب كمجالات مقدشو دقن واضحان وستين وادباتوتين الروتين يسكون ويأدي وين قفكيني حنوسنا قفكيني كوجيريو ذي حافظها مجالات مقدشو دمان فرصة وين أما دب أي عمران سيدي مال أنت وقتك ماشي كلا يكون جاران سادرتي loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo oo kan daqanayna arrintaas inaan nala qaadaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddaad tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka. sababtaas saa u leeyahay waxa weeye dadka dhibka noo geysanayo dadka idin ogoleen inaad horumar gaartaan dadka idin ogoleen inay caruurtiina wax barato inaad isbitaalada tagtaan inay hooyooyinka soo mulaan waa dad annaga nagu dhex jiro. dadka inaga nagu dhex jiro ee dhalinyarada u badan ee habaabsan ee dulmiga dhexdeena ka wado. waxaan rabaa dad fara ku tirisa guryahooda ku qarinayo dad fara ku tirisa ayaa meelaha dhibka laga soo ogo nala shaqeeya. hadda shacabka Soomaaliyeed tihiin keligeen mas'uuliyad ma qaadi karno haddaadan idinka nala qaado ma dhaqdo. waxaan idinka codsanayaa annagana dan noogu jirtaa idinkana dan idinkugu jirtaa inaad dadkaas faraha yar ee dhibka nagu hayo aad soo sheegtaan oo aad la wadaagtaan ciidamada amniga. ma ahan mustaqbalkeennii caruurteennii hooyooyinkeennii inay dhibkaa u maraan 4 qofood oo nabadiid ah. marka idinka ayaan rabaa inaan mas'uuliyadda idinku soo wareejiyo. wadooyinkii hadda qaar baa la furay qaarna way dhiman yihiin. qaarka la furay waxay tusaale u noqonayaan kuwa dhiman in la dhameystiro. sababtoo ah waxaan tijaabinaynaa inay shacabka nala shaqeeyaan oo ay dhinacayna istaagaan oo ay noo soo sheegaan dadka dhibka wada sida aan uga hortagno wadooyinkana dhammaan magaalada ay nabad u noqoto wadooyinkana loo furo. saan u sheegay waa ku soo celinayaa waxaan qiimeyn ku samayn doonaa jidadka kala xiran kuwaas oo aan iyagana furi doono insha Allah marka ugu soo horeyso ee aan hubino marka ugu horeyso aan hubino inay xasiloon tahay nabadii loo furay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciidamada walaalaha iyaga ee amniga suga oo maalin kasta ku dhaawacmo ku dhinto qaraxyada lala beegsado oo ah inaan u wada danqano oo ah dadkiinii wiilashiinii walaalihiinii gabdhihiinii inaan maxaa lahaa aan halka mahad ballaaran sida ay uga qayb qaateen halka iyo deganaanta magaalada Muqdisho horena loo sii wado. waxaan shacabka ku nool caasimadda ugu mahad celinayaa dulqaadkii ay muujiyeen muddada dheer. raalli ahaada mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad nala shaqeeya. waa mahadsantihiin walaalayaal.